sanado badan hooyooyinka Soomaaliyeed waxay culays badan kala kulmayeen burburkii ka soo gaaray Soomaaliya. Ururka Iftiin ee ka dhisan magaalada Amsterdam iyo nawaaxigeeda ayaa u taagan horumarinta arrimaha dumarka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka ay nool yihiin dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo korinta ilmaha iyo barbaarintooda. kulan lagu dhiirigelinayo hooyada ayna qayb ka ahaayeen dumarka ku nool wadanka Holland ee ka soo jeeda wadanka Syria kuwaas oo dhibaatada xagga dhaqanka la qaba Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Amsterdam. kulanka ayaa looga hadlay tacadiga dumarka Soomaaliyeed loo geysto kufsiga iyo dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo isdhexgalka wadamada ay ku nool yihiin. waxaana hadiyada dhiirigelin lagu guddoonsiiyay gabdho loo tababaray inay caawiyaan haweenka dhibaatooyinka la kulma wadamadan kuwaas oo si bilaash ah ku caawinaya dadka dhibaataysan guryahoodana ugu tagaya. ugu dambeyntiina Shukri Sheekh Xasan madaxa ururka Iftiin oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa warbixin naga siisay kulankoodii. waxaan aad uga hadalnay ama maanta ujeedadeeda ay ahayd isu imaatinkeena hooyada qaxootiga ah halkaas oo anaga iyo urur kale oo dumarka oo wadanka Syria dadka ka soo jeeda oo qaxootiga ah aan halkaan aan ku wada sameynay xaflad ay isugu imaadeen dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Syriyaanka ah ayadoo aan ugu talagaleyno isdhexgal bulsho inuu dhaco. hooyada Soomaaliyeed inay maaragtay dadka kale oo mujtamaca kale la nool ay dhexgalaan wax kala barano fikradaha isdhaafsano maadaama marna yihiin dad qaxooti ah marna ay yihiin dad oo maaragtay muslimiin ah oo isku dhaqan iyo isku culture aan nahay. maanta midda kale waxaan ka hadalnay tacadiyada aad ugu badanayo wadanka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka gabdhaha yaryar waliba waayahan aad loo maaragtay loo ataagareenay ama gabdho yaryar oo aan qaan gaar ahayn maaragtay kufsigooda iyo tacadigooda aad u batay iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha keenay ayaan maaragtay maanta xataa aan arintaas aad uga hadalno oo wax hooyo walba Soomaali ah ka damqanayso halkaan joogto. waxaan aad hooyooyin badan u soo jeediyeen in ay hooyooyinka ama waalidiinta ay ka taxadaraan inay ilmahooda og yihiin meel walba ay joogaan maaragtay inay og yihiin inuu meel safe ah ama meel maaragtay nabad ah inuu joogo inay qofkay u dhiibayaan ay yaqaanaan inay qofka ay ilmahooda ay ku haleynayaan ama macalinka dugsiga ha noqdo ama family ha ahaado inay og yihiin in ilmaha yararka la dayacin oo kaligiis banaan wax ka doonin. waxaan kaloo maanta aan iyadana u hambalyeynay ama aan bogaadinay oo maaragtay shaqada ay qabtaan gabdhaha iska wax u qabsiga ku shaqeeya oo ururka Iftiin caawiya oo hooyooyinka kale maaragtay mar walba garab taagan caawiya ama advice gareeya ama wax u sheega ama u turjuma ama u taga meelaha ay joogaan ka caawiya ayaan iyagana maaragtay hadiyada siinay iyadoo lagu dhiirigelinayo maalinta hooyada iyo dadaalka ay ugu jiraan hooyooyinkaas. Tawfiiq Shira Muuse warbaahinta qaranka Amsterdam Holland.